رئيس وزراء دولة فدرالك Soomaaliya ku-xigeenkiisa xukuumadda golayaasha labada gole ee baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho salaadiinta culimada aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka gabdhaha sharafta badan saraakiisha ciidamada bahda saxaafadda dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin saad u fadhidiin bahay boqorba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaaha mahad lena waafajiyey inaan ka soo qayb galno xafladan qiimaha badan ee aan ku soo dhaweynayno ra'iisul wasaaraheena iyo xukuumaddiisa uguna mahad celinayno rabbi kadib madaxweynihii soo magacaabay iyo baarlamaankii ansixiyey ee u oggolaaday inay shaqeeyaan mudan ra'iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin waqtiga waa kooban dartiis war kale ma lahan meeshaan waxaa ku qoran tabeelle magac beeleed ku qoran yahay oo ah beesha dhigtay macnaheedu taasu ma ahan beeshaasu inay gogosha leedahay gogosha waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed inta fadhida iyo inta ka maqanba marka beeshaani dabka idin gashay waa adeegiisa kaliya soo dhawaadaan idin leenahay marka la soo dhawaadaan idin leenahay ujeedaduna waxay tahay inaan dawladda xukuumadda cusub soo dhaweyno u duceyno lana shaqeyno intaas kadib waxaan rabnaa ra'iisul wasaare xukuumaddaadu waa xukuumaddii ugu horeysay ee aan arkay iyadoon hawsha loo idman oon la fasixin in baarlamaanka ku bilaabo tuuriyo iyo mooshin waxaan marka soo xusuustay nin ayaa wuxuu dugsi geeyey wiil yar u dhalo dugsi geeyey marka dugsiga markuu geeyey waa taqaaneen waqtiyada hore shams wax la yiraahdo jira ilmaha marka haddii macallinku uu arkay iyo waxoogaa fadhiya oo caajisan uu saf kala maraa cunugii marka safkii uu ku jiray wiilna alif looma dhigin safkii asoo ku jira usha lagu bilaabo kulli safkii waa marka kii meesha joogo usha fahmayay iyo kii cusbaayba ush waa ku wada dhacday cunugii dugsi waa ka cararay aabihiisa weli dhax sii socdo ka daba tegay bariya maxaa kugu dhaco yiri aabba aniga weligay ma arkin inuu quraan ul ka bilaabayo quraan alif ka bilaabo maqli jiray marka halkan quraan macallinka ii geeyay quraan wuxuu ii keenay ul ka bilaabahay baarlamaan dawlad oo san ansixin xukuumadda oo ahsan ul iyo mooshin iyo qaylo ku bilaabay waxaan leenahay waa mahadsantiin inta ansixisay inta kalena waxaan leenahay in la xaliyo malina marka waxaan leenahay dawladda waqti hal la siiyo iyaga bani aadan oo qalad gali kara waa mahadsantiin marka la soo dhawaada assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh